saddexda May maanta oo kale dunida waxaa looga dabaaldegaa Maalinta Xuriyadda Hadalka. Wariyaasha Soomaaliyeed oo ku shaqeeya marxalado kala duwan mararka qaar waxay la kulmaan tacadiyo uga imaanaya ururada hubeysan ee ka jira dalka iyo dowladda Soomaaliya. ma haystaan saan qaba aniga qaarkoodna wali waxay ugu jiraan xabsiyo iyo maxarta agajugleen ayaa lagu hayaa wali inta aan hadda aan ogahay waxaa xiran kalgacal oo loo haysto xuratul qol wax kamid ah waxa kale jiro nin oo laguba iloobay oo maxamed aweys muuday oo ka shaqeynaya idaacadihii hore idaacadii raadiyo muqdisho iyo idaacado kale ka soo shaqeeyay haddana lagu haysto maxay ahaatay wadanka Itoobiya iyadoo lagu xukumo 27 sano. dabcan maanta waxaan u dabaaldegaynaa 3 May oo caalamka looga dabaaldegayo gaar ahaan magaalada muqdisho ayaan kaga qayb qaadanaynaa inaan u dabaaldegno hase ahaatee waxaa dhigi karta dabaaldega iyo caqabadaha haysto isku mid ma ahan waxaana dhibanayaal u dabaaldegayo in ay xuriyad helaan dabcan dumarka Soomaaliyeedna caqabadooyin badan way la kulmaan hadii ay ahaan lahayd goobaha ay ka shaqeeyaan markay shaqo doonka yihiin iyo arrimo kale marar badan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqul insaanka iyo madaxda dawladaha dalka Soomaaliya ayaa ku baaqay in la joojiyo tacadiga gudaha dalka loogu geysanayo wariyaasha Soomaaliyeed laakiin arintaas ma hakin dilalka bareerka ah ee loo geysanayo saxafiyiinta Soomaaliyeed. Cabdicasiis Maxamed Cali oo loo yaqaanay Xaaji ayaa ahaa wariyihii ugu dambeeyay oo si bareer ah loogu dilo Muqdisho. waxa la soo sheegay in qof wariyaa yaqshid lagu dilay runtii dareenkayga aad isku bedelay way saameysay sababtoo ah waa ogtahay ani adiga isagaba 3 maalin ka hor 2 maalin ka hor shaqo isla joognay inta ugu badan uu imaan jiray nin kaftan badan oo wariyaasha saaxiib la oo dadku ay jecel yihiin oo ahaa marka anigu way danqis waa dareem laakiin xogti aan raadinayo kumaanan si ay keenin dhacdadii saaxiibkay qabsatay waa qasab waajib markaas ah bulshadu ka sugayso inaad sida wax u dhaceen iyo wax ay dhaceen gaarsiiso. marar qaar wardoonayaasha waxay dhibaato ka soo gaartaa goobaha ay wararku ka raadinayaan haba ugu badnaatee marka ay qarxidu ka dhacaan Muqdisho. Munasir Maxamed Cabdi ayaan weydiiyay sida uu wariyuhu ugu taxadari karo qataraha noocaas ah. run ahaantii dhowr qaab jirta oo wariyaha uu asaga uga fikiri kara naftiisa sababtan waxay tahay warbaahinta caalamka iyo dadkii saxaafadda ku taqasay waxay isla garteen in war in la sheego ay ka weyn tahay in marka horeba qofka wariyaha uu ka fikiro naftiisa marka dhacdadaas intii la heli lahaa haday khatar u keenayso naftaada in adiga ka feejignaato waa marka tababar la'aan wadan ka jirto waxay sabab u noqotay in wariyaashu ay ku degaan meel walba oo khatar leh laakiin aan aragtay ahaan waxaan qabaa in marka ugu horeyso wariyaha uu haduu istuso in dhacdadan ku horumaritaankeeda kaliya inaysan muhiim ahayn oo xogta saxda siyaabo kala duwan loo baari karo in uu khatar badan oo soo wajiila oo dabcan uu ogaan karo waxa kamid ah qaraxa dhacay turba qofka wariyaha inuu ku dego lama rabo sababtoo adiga ma tihid hay'adii ku shaqada lahayd ama wax baarayay sida wax u dhaceen baarayay ma tihid wariyaha tahay waxaad ka soo tabin kartaa meelo kala duwan ka tabin kartaa oo adna khatar aanan kaaga imaanaynin warkina aad ku heli karto. dalalka Syria, Iraq, Yemen, Afghanistan iyo Soomaaliya ayaa kaalmaha hore kaga jira dalalka lagu dilo wariyaasha. dad badan ayaa aaminsan in wariyaasha qaar ay ku dhaawacmay dalka iyagoo u gudanaya howlahooda shaqo inaysan helin daryeelkii u baahnaayeen. waxa ahayd markaa dhacdo murugo leh subaxaasi ma filayn runtii in dibkii aan Muqdisho uga cararay mid la mid ah Boosaaso aan kala kulmi doono waliba dhaawac halisa oo dhanka wadnaha ah 5 xabadood markaas iga dhacday anoo fadhiya idaacadda meherad ka hooseyso shaah lagu cabo anoo markaa fadhiya runtii markaas aan miri ugu dambeysay muddo ka bacdi koomada markii aan ka soo baxay kadib waxaan markaa aan maskaxdaydi iyo miirkaygu soo laabtay anigoo markaa faleebooyin iyo tubooyin ay ugu xiriireen markaa isbitaal jiifa نو أول صورة تحدر بقول كيف بس عشان إنها تحدرت دوا مهم لكن والد على ريسكي جنا مركا آذ وبنيه ريسكي يوحس أجياله يو opportunity فرصة مركا فرصة في ريسد فرصة هدار بتدينا أوبريرتد ريسكي جنا وأجياله مركا قطر أنا قدرنا أوض بريرني أو إن أن قطرت عن وطن كان وشقينا مركا ده هذا قطرتي وكجوك سنة opportunity جنا ودافع opportunity وحاول تذكر إنه وشقيس. أويس محمود جل BY RTN مقدشو.